Markii aan galay dugsiga sare, waxaan ahaa qof ay wejigiisa ka muuqato astaantii odhanaysay igaraa. Noloshaydu waxay ahayd mid iska caadi ah. Wax kasta oo igu saabsanaa waxay ahaayeen kuwa dhexdhexaad ah, buundooyinkayga, dhererkayga, iyo timahayga oo aan weligood u dhaqmi jirin si la mid ah wiilasha caanka ah ee TikTok. Gurigana waxaan ku noolayn aniga iyo hooyaday oo keliya. Hooyo, ma u guuri karnaa meere cusub? Ayaan maalin weydiiyey. Waan u guuri karnaa haddii meerahaas laga helayo guri kiradiisu ka jaban tahay tan aan hadda bixinno, ayay iigu jawaabtay. Hooyaday waxay ahayd qof kalsooni badan, jecel buuqyada, mar walbana heesta marka ay cuntada ku dhex karinayso microwave-ka. Waxay mar kasta isku dayi jirtay inay iga saarto xishoodka xad-dhaafka ah ee igu jiray. Sidaa darteed, waxay ii diiwaan gelisay fasal jilitaanka riwaayadaha ah oo ku yaala xarunta bulshada. Laakiin kadib 6 toddobaad oo aan madasha dhex taagnaa, anigoo u eeg sida geed meel ka baxay, xishoodkaygii waxba isma bedelin. Dugsiga waxaa joogay wiil la yiraahdo Logan. Wuxuu ahaa kabtanka kooxda kubadda kolayga, wejigiisuna wuxuu u qurxoonaa sidii naqshad cajiib ah oo rabaani ah. Wuxuu lahaa hal hawlgal oo maalinle ah, inuu aniga igu jeesjeeso oo uu sharafkayga wax u dhimo. Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu si kedis ah u dafay taleefankayga, wuxuuna shaashada weyn ee dugsiga ku soo bandhigay sawir aan iska qaaday anigoo hal eber jir ah. Sawirkaas waxaan ku xidhnaa dhar hurdada ah oo ay ku sawiran tahay masiibada caanka ah ee unicorn. Waxaanan lahaa timo si xun loo jaray oo baaquli u ekaa. Tani waxay ahayd mid u dhiganta dembi weyn oo sharaf dhac ah. Bal eega, mudanayaal iyo marwooyin, sababta uu Jay weli keligiis u yahay, ayuu ku dhawaaqay Logan. Waxaan hamiyey in dhulku ila goo ama ugu yaraan uu danab igu dhaco si aan miyirka u lumiyo. Heshiis ayaan la geliyayaa, Jay, ayuu yiri Logan. Haddii aad saaxiibad la timaado ka hor habeenka qalinjabinta prom, sawirkan meel kasta oo aan soo dhigay baraha bulshada waan ka tirtiri doonaa. Laakiin haddii aad ku guuldaraysato, waxaan sawirkan ku daabigi doonaa shaatiyada uu fasalku u xidho qalinjabinta. Wuxuu u qoslay si la mid ah doofaaro caraysan, isagoo iska dhaqaaqay, halka naftu ay igu yaraatay. Habeenkaas barkintayda ayaan ku dul ooyey. Maxaan samayn karay? Xitaa gabadh indhaheeda ma eegi karin. Wax ka bayan 3 eber ilbiriqsi, iska daa inaan weydiiyo shukaansiye. Mar dambe dugsiga tegi maayo, ayaan naftayda ku yidhi. Laakiin markii dambe fikrad ayaa igu soo dhacday. Dadku waxay gabdhaha ka bartaan barnaamijyada shukaansiga, The Ting Abyss. Waxaan go'aansaday inaan koonto samaysto si aan u caddeeyo inaanan sidaa u xunayn. Laakiin markii aan taleefankayga furayba, waxaan arkay sawirkaygii unicornka oo baraha bulshada ku baahay, iyadoo ay ka buuxaan faallooyin ay ka mid yihiin. Waxaan hubaa in wiilkani uusan weligiis gabadh heli doonin. Tani waxay ahayd run biyaha kama dhibcaan ah. Waxaan ku dhaygagay shaashada anigoo rajaynaya inaan uumi noqdo. Laakiin daqiiqadaas waxaa maskaxdayda ku soo dhacday fikrad waali ah oo khatar ah. Waxaan go'aansaday inaan saaxiibad been abuur ah samaysto. Miyayna taasi sahlanayn? Maalintii xigtay, anigoo dugsiga u socda, waxaan maskaxda ku haynayay sifooyinka gabadha aan been abuurka u samaysanayo. Waxay leedahay timo madow, ayaan naftayda ku yidhi. Anigoo fikradahaas ku mashquulsan, waxaan ku dhuftay wax adag. Waxaan u qaatay inuu Logan yahay, laakiin waxay ahayd geed. Madaxaygii wuu xanuunay, aragtikuna wuxuu noqay mid qalafsan. Waxaan ku dhacay alaabtii meesha tiil anigoo u eeg nacas weyn. Markii aan fadhiistay fasalkii koowaad, waxaan ahaa mid dhididsan, wareersan, oo hal eber aan u diyaarsanayn hawlgalkii saaxiibad been abuur. Aamusnaantii waxaa jebiyey Logan oo fasalka soo galay. Jay, su'aal muhiim ah, ma jimcaha ayaad keeni doontaa unicornkaaga? Ayuu igu yidhi si jees ah. Kursiga ayaan ku dhex liqay. Maxaan naftayda ku sameeyey? Laakiin si kedis ah ayay ereyadu afkayga uga soo naxeen. Dhab ahaantii, waxaan leeyahay saaxiibad. Fasalkii oo dhan ayaa aamusay, laba madaxna dhankayga ayay u soo jeesteen. Logan wuxuu u qoslay si jees ah. Tani waa waxa ugu doqonsan ee aan maqlo toddobaadkan. Xitaa walaalkayga doqonka ah wuxuu isku dayay inuu muraayad ku shiilo qaanso shalay. Mana dhihin saaxiibad ayaan leeyahay. Ma adigaa saaxiibad leh? Waxaan si waali ah u raadiyey wax aan ku jawaabo. Madaxayguna wuxuu u garaacayay si xoog leh. Waa kuma magaceedu? Ayuu weydiiyey. Waan argagaxay, waxaanan idhi, Debs, taasi miyaanay ahayn magaca hooyada? Ayuu yidhi wiil fasalka ka mid ah. Haa, laakiin dadka oo dhan ma caawin karo, ayaan iskula hadlay anigoo wareersan. Waxaad tahay doqon weyn. Haway degtaa? Ayuu Logan sii weydiiyey. Narnia, ayaan idhi. Dugsigeedsa dhigataa? Hogwarts? Ka waraabo barta Instagramka. Way xishootaa, ma jecla baraha bulshada. Waxay ku mashquulsan tahay qaabaynta dharka ee Yurub, laakiin sawiradeedu weli ma soo bixin. Haddaba, waxaan rabaa inaan la kulmo, ayuu yiri Logan isagoo dhoola cadaynaya. Qalbigayga ayaa joogsaday. Keen jimcaha ciyaarta weyn ee dugsiga. Waxaan idin siin doonaa fursad aad garoonka dhexdiisa ku istaagtaan. Waxaanan idin saari doonaa kamarada dhunkashada kiscam. Waxaan gacanta ku garaacay hawada anigoo isku kalsoon oo idhi, dhibaato ma jirto, way iman doontaa. Maxaan ku fikirayay? Waxaan haystay 4 maalmood oo keliya si aan u helo qof dumar ah oo dhab ah. Habeenkaas waxaan isku dayay inaan dhibaatada u xalliyo si kasta oo farsamo ah. Waxaanan adeegsaday Photoshop. Waxaan 2 saacadood ku qaatay inaan si xun isugu daro sawirro aan ka soo qaatay Instagram si aan Logan ugu caddeeyo inaan saaxiibad leeyahay. Laakiin hooyaday ayaa qolka soo gashay, waxayna ku dhaygagtay kombuyuutarkayga. Gacalkaygii, maxay gabadhaasi u leedahay 3 gacmood? Ayay tiri iyadoo la yaaban. Halkaas waxaan ka ogaaday inaanan u baahnayn sawir been abuur ah, balse aan u baahanahay qof dhab ah oo iska dhiga saaxiibaday. Sidaa darteed, waxaan u jeestay meeshii hooyaday ay u haysatay inay xishoodka igaga daweynayso, fasalkii riwaayadaha. Waa hadda ama weligeed. Waxaan u tegey gabadh fasalka ka mid ah oo aan idhi, haddii la kuu sheego intee lacag ah ayaad ku qaadan lahayd inaad iska dhigto qof jacayl ii haya? Indhaha ayay igu soo taagtay oo tiri, ma waxaad wadaa qorshe bahalnimo ah? Maya, waa argoosi ka dhan ah wiil cagajugle ah, kamarad dhunkasho ah iyo dhar unicorn ah, ayaan ugu jawaabay. Waxay dib uga gurmatay sidii qof arkay cudur faafa. Waxaan isku dayay gabadh kale oo jimicsi samaynaysay. Haye, waxaan ahay Jay. Ma u malaynaysaa inaad ii raaci karto ciyaarta kubadda kolayga ee jimcaha adoo iska dhigay
xigaya saaxiibaday. Waxay iigu jawaabtay, keliya haddii aad tahay Chris Hemsworth. Markaasay iska jeesatay. Waxaan dareemay ceeb weyn, wejigayguna wuxuu noqday mid casaan ah oo ukun lagu shiili karo. Laakiin daqiiqadaas qof ayaa ka qoslay geeska qolka. Waxaan eegay dhankii codka. Waxay ahayd gabadh aan inta badan arki jiray laakiin aanan weligay la hadlin. Gabadhaas waxay ku tiirsanayd derbiga, gacmahuna way u istaafsanaayeen iyadoo daawanaysay riwaayadayda. Waxay wadatay boorso dhabarka ah, timaheedu way qallafsanaayeen, waxayna ahayd qofka keliya ee xidhnaa dhar caadi ah oo aan raacayn qaababka moodada ee u dambeeyey. Magaceedu wuxuu ahaa Zoe. Waxaan magaceeda u ogaaday sababtoo ah macalinka riwaayada ayaa had iyo jeer ku qaylin jiray, Zoe, taleefanka iska dhig. Zoe, jooji dib u qorista qoraalka. Zoe, jooji ka dhigista goobta dhimashada mid aad u daran oo leh dhiig been abuur ah. Zoe waxay ka soo kacday derbigii, waxayna u soo dhowaatay dhankayga. Ma og tahay inay jiraan siyaabo ka fudud oo aad ku dhiman karto intii aad gabdhaha weydiin lahayd inay saaxiibad been abuur ah ku noqdaan, ayay tiri. Ma wax walba baad arkaysay, ayaan weydiiyey anigoo ceebaysan. Waxaan odhan lahaa maya, laakiin been sheegistu maaha hibo aad leedahay, ayay tiri. Maxaadse ugu baahan tahay saaxiibad been abuur ah? Waxaan u sheegay wax kasta, sawirka unicornka, heshiiska Logan, shaatiyada qalinjabinta, kamarada dhunkashada, iyo cabsida aan ka qabo inaan bulshada dhexdeeda ku ceeboobo. Logan waa wiil shar badan, ayay tiri Zoe kadib markay sheekadeeda dhegaysatay. Wow, taas oo keliya ma ka ogaatay sheekada, ayaan idhi. Waan kuu samaynayaa, ayay tiri si kedis ah. Waan naxay. Ma run baa? Hal shuruud ayaa jirta, waa inaad saaxiib dhab ah ii noqotaa. Inaan wada bixino, wada hadalno, iyo waxyaabo la mid ah. Ma heshiis baa? Waxay soo taagtay gacanteeda, aniguna waan ruxay. Waxaan si rasmi ah u helay saaxiibad been abuur ah. Sidoo kale ayay raacisay, hooyaday aad ayay u farxi lahayd haddii ay ogaato inaan saaxiib leeyahay. Markaa tani waxay noqon doontaa mid xiiso leh. La soco Part 2.